الله الرحمن الرحيم إذا لهانتم بداوديال waxaan idin leeyahay Ramadan Kareem waxaad ku soo dhawaataan wararkii telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo saacadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka qodobada ugu doorka rool ee warka caawana waxa kamid ah wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo laabtay wasiirka wasaaradda qorsheynta Somaliland ayaa soo gabagabeeyay shirkii sagaalaad ee isku duwidda mucaawinooyinka Somaliland kaasi oo muddo 2 cisho ah ka socday dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku wareejiyay barasaabka gobolka Sool daawooyin loogu talagalay in lagu daaweeyo dadkii ku soo dhaawacmay dirirtii dhawaan dhexmartay dadka walaalaha ah ee wadadaga koonfurta gobolka Sool maayirka caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa digreeto ku soo saaray in taariifada ku waajibtay laga qaadi doono shirkadaha soo saara biyaha iyo sharaabka intaasi daawadayaal waa qodobadii ugu door karoona warkeena caawa haatan isagoo faahfaahsan wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo laabtay warkani waxaynu haya wariye Axmed Saki Daahir Xasan waftigana uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay dalka Imaaraadka Carabta ujeedadiisuna uu salka ku hayay dardargelinta wajigii labaad ee heshiiskii ay dhawaan wada galeen dawladaha Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhameysteen safarkaasi shaqo injineer Cali Cumar Maxamed mareeyaha guud ee marsada caalamiga ee Barbara oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay heshiiskii ay wada galeen dawladaha Somaliland iyo Imaaraadka Carabta gaar ahaan wajiga labaad iyo waxyaabaha ku soo kordhay maanta hawshan soo qaban waxa kamid ah wax walba sidii meeshoodii loo dhigi lahaa iyo hoosulaal ku saabsan waqtiyeynta shaqooyinka la qaban doono sida loo qaban doono iyo barnaamijku sidii loo dhameystiri doono hadii la yiraahdo farsamay u badan tahay in fact waxa ku jira hadaan soo qaado in muddo sanad gudihiisa lagu dhameystiro dekad cusub kii walkeedu yahay 400 mitir oo dekadaas oo kareemaya la doonto waaweyn in sanad gudihiisa lagu dhameystiro qodobkaas oo runtii hawl badnaa waan iska soo dhameynay waan noo soo suurta galay waxa kale oo kamid ah in barnaamijka halkii dekada hore la shaqo laga bilaabi lahaa la qodqodi lahaa wax laga sameey lahaa aan loo dhawaan dekada hore ilaa dekada cusub ilaa ay dhamaato taasoo qodob muhiim u ah xagga operationka كلا هيان وupfront investment شركته هذه jeer way ka cararaan way ka laakiin ku heshiinayka waxa kale oo ku jira hawshu wali way noo socotaa inkii oran lahaa imka way dhamaatay iyo duba loo dhigay waxa jiraan waa shaqo badan weeyaan laakiin waxaan u arkaa inay si wanaagsan ay nagu socoto anigii wasiiraduba hadalka arrinkan ba ka hadlayay marka waxaan filayaa in waxa shacabka u sheegaynaa inaan ugu maqanahay wax fiican waxaan shacabka dhalinyarada u sheegaynaa inaan ugu maqanahay mustaqbalkooda wax far badan ka hagaajino waxaan shacabka u sheegaynaa inaan hadalka badan suuqa ku jira anagu inaan ku maqanayn wax baabiyay wax xumeeyay ku maqanahay horumarkuna uu yahay in dekada la weynayo ay wadamada jaarkiina ka faa'iideysan karaan inakana qiimayaasha ocean traffic waxa ay naga dhilmaan waxa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shirkii sagaalaad ee mucaawinooyinka Somaliland kaasi oo muddo 2 cisho ah ka socday dalka mar kale waxa warkan inoo eegaya wariye Axmed Saki Daahir Xasan
shirkan oo ahaa kii sagaalaad ee isuduwidda mucaawanooyinka Somaliland oo muddo 2 cisho ka socday hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa kana qayb galeen dawladda Somaliland iyo dalalka Somaliland ka taageera dhinaca horumarka ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombo oo shirkaasi soo xidhay ayaa ka hadlay waxyaabaha lagaga hadlay muddadii 2 cisho ee kulankaasi uu ka socday iyo waxyaabaha muhiimka ee ka soo baxay waxaan halkan u joognay shirkii shalay uu inoo furay madaxweynuhu oo ku saabsanaa deeq-bixiyayaasha iyo Somaliland kulankii sanadlaha ahaa ee ay kulmi jireen sanadkiiba mar kaasoo lagaga wada arrisado sanadka soo socda waxyaabaha u baahan yahay in la qabtay in laga hadlo iyo in la iswaafajiyo baahideenna iyo waxyaabaha ay naga caawinayaan sidaa darteed shirkaasi oo muddo 2 maalmood noo socday waxaa ka soo qayb galay oo presentation ku sameeyay ama soo bandhigid sektarada ama qaybaha uu ka kooban yahay Somaliland oo ah qaybta kaabayaasha ama infrastructure-ka dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka deegaanka iyo environment-ka Allahumma salli ala Muhammad maritime security-ka governance-ka iyo energy-ga marka waxa lagu presentation lagu sameeyay ama soo bandhigid lagu sameeyay baahiyaha aynu qabno iyo waxyaabaha caqabadaha inaga hor yimid sanadkiina dhaafay iyo ka soo socda sidii looga baxayo dariiq loo mariyay in laga baxo iyo sidii ay nooga geysan lahaayeen gacan waxa si wanaagsan buu noogu dhamaaday waan isku afkaranay waxa ay nala ogolaadeen oo ay diyaar u yihiin inay nagala shaqeeyaan waxaanu ku soo bandhignay qaybtii labaad ee qorshaha labaad ee 5 sano soo socda ee horumarineed qorshaha horumarineed 5 sano soo socda ee Somaliland kaasoo si wanaagsan ugu soo bandhignay runtiina ay aad ugu qanceen iyagoo u arkay inaynu horumar fara badan oo ballaaran sameynay guddigii gurmadka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u diray gobolka Sool ayaa kulana kala duwan la qaatay guddida nabadgelyada ee gobolkaasi iyagoo ka wada hadlay xoojinta amniga war amuurtaasi ku saabsan waxa gobolka Sool nooga soo diray wariyahayaga nooga soo warama Barkhad Umar guddigii gurmadka wasiirada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u soo igmaday deegaanka gobolka Sool ee shaqaqadu ka dhacday ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood waxaana kulan ballaaran la qaatay guddida nabadgelyada gobolka Sool kulankaas soo qaatay saacado kadib ka soo saaray go'aamo hordhaca oo go'aamo xagga nabadgelyada oo hordhaca kulankaas oo ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland mudane Saleebaan Ciise Xagle Toosiye wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sandul wasiir dawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye iyo waliba wasiir dawlaha xanaanada xoolaha Cabdirashiid Riyaac iyo waliba hoggaanka hawlaha ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda Somaliland kulankaas oo qaatay saacado kadibna waxa warbaahinta la hadlay oo ka waramay go'aanada ka soo baxay guddida nabadgelyada iyo waliba guddida wasiirada ee go'aano hordhaca oo dhanka amniga waxaana go'aanadaasi akhriyay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ah baaq nabadeed iyo in dib loogu soo noqdo gogasha iyo wada hadalkii loo diyaar garoobo labada dhinac laga bilaabo maanta inay u diyaar garoobaan cushaana guddiyadii ka qayb qaadan lahaa nabadgelyada iyadoo ay soo gaarayaan oo wafdiga qayb ka noqon doonaan oo iyagu iman doonaan madax dhaqameedyo iyo guurti ka socota jamhuuriyadda Somaliland oo caasimadda ka soo ambaxaysan noo iman doonto guddida guurtida iyo madax dhaqameedyada oo ahaan doona kuwa technically ama farsamo ahaan ka shaqeeya nabadeynta iyo suuqeynta beelaha taa marka laga tago waxaan ku baaqaynaa in loo diyaar garoobo wada hadallada in la joojiyo colaadda walaalaha in la joojiyo dhiilada in la joojiyo wararka xun iyo kalsooni darrada abuuraya intaaba maanta waxaan ku baaqaynaa mar kale marka taa laga tago waxaan isla garan in la soo saaro awaamiir cusub oo lagu dhaqmayo laga bilaabo maanta awaamiirtaas oo ah in deegaamada ay wada joogaan labada deegaan ama beelood ee colaaddu ka dhacday ama ay ka aloosan tahay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay ku dhamaadaan ay ku dhan halka ciidamada joogaan aan laga aqbali doonin in dhacdooyin dambe oo maartay dagaal ama weerar ama abaabul weerar ay ka jiraan waxa la soo saaray laba qodob oo qodobka koowaad uu yahay in cidda bilowda xabad ama weerar ee labada dhinac ee dagaalame ah in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay gacan adag ku qaban doonaan dhinacna ka noqon doonaan iyadoo maartay ciidamadu ay gacan adag ku qabanayaan oo ay tallaabo ka qaadi doonaan qodobka labaad ee soo saarnay waxa weeye labo
in magaalada laascanood aan laga ogoleen wax xaalada cid alle cid isku dayda ama fuulisay fal ka dhanaa nabadgelyada oo la xiriira waxa ka dhacaya deegaamada Dharkeengeeye iyo la xiriira deegaamada ay colaadii jirtay in loola macaamili doono si ka baxsan deegaanada isla markaana tallaabo adag oo aan naxariis lahayn ka qaadi doonaan ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka iyo guddida nabadgelyada golaha iyo guddida wasiirada kuwaasoo aan tallaabo adag ka qaadi doono isla markaana aan raacin doono haddii ay xakameyn waayaan waayeelka labada dhinac ciddii falkaa geysata labada qodob ayaan go'aansanay waana awaamiir cusub oo loo dhaqan gelinayo la fulinayo cidna aan lagala tashanayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وبرخد عمر أحمد تلفزيون كقرن السوماليلان لاسعانات wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku wareejiyay barsaabka gobolka Sool daawooyin loogu talagalay in lagu daaweeyo dadkii dhawaan ku soo dhaawacmay dirirtii dhexmartay dadka walaalaha ah ee wada daga koonfurta gobolka Sool sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa booqday dadkii ku soo dhaawacmay dirirtaasi oo jiifa isbitaalka magaalada Laascaanood sida warkan inoogu eegayo wariye Barkhad Cumar Axmed iyadoo wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Salebaan Ciise xagla toosiyay ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Sool daawo loogu talagalay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood inuu ka qayb qaato xaaladda ka cusub deegaanka koonfurta ee gobolka Sool ee shaqada labada beelood ee walaalaha wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kulmay bilaaran ku sameeyay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood isagoo ujeedkiisu ah xoogaan noqoshada xaaladda guud ee bukaanka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood guddiga wasiirada iyo waliba gudoomiyaha gobolka Soolba boqdeen isbitaalka qaybta ragga dhaawacii ku soo waxyeeloobay shaqaaqadii labadii beelood ee walaalaha ee degmada Dharkeen ee gobolka Sool ku soo waxyeeloobay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaana si wanaagno ah inaan ku wareejino wasiirka caafimaadka mudane waxaan ku wareejino si wanaagno tahay inaan ku wareejino daawadii loogu talagalay dhaawaca iyo award warning kit lagu magacaabo halkaas 80 kartoon oo gaaraya inaan ku wareejino anagoo ku hadlaya magaca movementiga bisha cas oo hadda aan soo gaarsiiyay halkan ay taagan yihiin qaybta cas caalamiga waxaan halkan ugu mahad celinayaa hay'adda ICRC iyo hay'adda bisha cas oo la soo gaarsiiyay daawo ay ku caawiyaan isbitaalka magaalada Laascaanood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ana waxaan ku wareejinayaa taasi la mid ah baan ugu mahad celinayaa hay'adda ICRC iyo bisha cas oo runtii nagala qayb qaadatay dhacdadii maalintii dhaweyd ka dhacday Dharkeengeeye qaasatan gudoomiyaha bisha cas iyo tiimkiisa waxay ahaayeen raggii nala kowsaday ciidanka qaranka barbar socday ay maalin wada galeen Dharkeengeeye nala aasay meedka maaragtay nala guray dhaawaca runtii kaalin libaax oo wax ku oola oo gurmad u ah maanta dhibaatadii dhacday bay ka qayb qaateen haddana waxay noogu xajiyeen inay noo keenaan dawooyin war wounded kit leeyahay oo goobaha dagaalka dhaawacyada ka dhashay dagaalka kirkii lagu daweyn lahaa oo ay iminka lagu wareejinayaan waxaan leenahay runtii aad baad mahadsantihiin waana idin haynaa wanaagga iyo abaalka waa mid la shaqayn doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وبرخد عمر أحمد تلفزيون كقرن السوماليلان لاسعانات maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa digreeto ka soo saaray in taariifada ku waajibtay laga qaadi doono shirkadaha soo saara biyaha iyo sharaabka sida warkan inoogu eegayo wariye Maxamed Foosi Maxamed duqa caasimadda Hargeysa ahna gudoomiyaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa isagoo ka duulaya xeer number 322 ee 2002 qodobkiisa 17aad xubintiisa 9aad farqadiisa 1aad xarafka ee kalfadhigii golaha deegaanka caasimadda Hargeysa kuna saabsan dhibaatada qashinka caagaduhu ku hayaan bilicda caasimadda Hargeysa iyo fayadhoorka deegaanka duqa caasimadda Hargeysa waxa uu go'aansaday markuu arkay xeerka mideynta taxriifada ee xeer number 20 oo si cad u qeexaya taariifada wax soo saarka gaar ahaan shirkadaha biyaha sharaabka markuu ogaaday inay waajib tahay in shirkadaha wax soo saarka gaar ahaan biyaha iyo sharaabku ay iska bixiyaan cashuurta xaq loogu leeyahay markuu tixgeliyay talada mas'uuliyiinta ay hawshan khusayso waxa uu go'aansaday duqa caasimadda Hargeysa ahna gudoomiyaha golaha deegaanka markuu la tashaday duqeyda iyo waxgaradka caasimadda Hargeysa eegayna qodobka sharci ee sare ku xusan waxa uu soo saaray in dhammaanba shirkadaha wax soo saarka gaar ahaan
kuwa biyaha iyo sharaabku ay keenaan wax soo saarkooga 5 bilood ee ugu dambeeyay ee sanadkan January ilaa May 2016 agaasimaha cashuuraha iyo agaasimaha hantidhowrkana waxa uu faraya in laga bilaabo 15 June 2016 in ay ka qaadaan cashuurta wax soo saarka shirkadaha biyaha iyo sharaabka kantaroolada caasimadda Hargeysa. Digreetadana waxa ku saxeexnaa maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko. geesta kalena waxa mas'uuliyiinta caasimadda Hargeysa ay dhulbanayn ka bilaabeen wadada ku taala degmada Maxamuud Haybe taasi oo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose sida agaasimaha waaxda maamulka dhulka ee dawladda hoose Maxamed Xariir Suldaan oo halkaasi ka warbixiyay howlgalkan iyo waxa uu khuseeyay sida ay dhulkani u banaynayaan hadaladiisina waxa kamid ahaa maanta waxaan ku jirnaa degmada Maxamuud Haybe oo ka banayn taasoo maayarka caasimadda ugu tala galay dadweynaha baahiyahooda si toos ah looga qabto dariiqada biyuhu marayaan iyo meelaha garwaa ku xidhay iyo meelaha ay ka xidhan sandaaqaduhu laga baneeyo waxaanu guddo ku jirnay 3 cisho waxaanu banaynay wadooyin gaariga dhowr iyo 10 waana sii wadi doonaa anagoo bariya galbeed iyo koonfur iyo waqooyiba wadooyinka ku yaala Maxamed nooga mari doona iyadoo ay markaa wadooyinka aan marinayaa yihiin kuwa waqooyiga u kala socda iyo koonfurta muddo 3 cisho wadooyinkaan banaynay dhowr iyo 10 yihiin imankana aanu sii wadi doonaa howlahaas. intaasi kadib waxaa isku daba hadallada mas'uuliyiin kale iyo shacabka iyagu goobtaasi iyo shaqaalihii ka shaqeynayay oo iyagu ka warramay muhiimadda ay bulshada u leedahay in wadadani la baneeyo. wararkaanu idii hayno waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen dhammaan baarlamaanka xisbiga kulmiye ee dalkan Britain iyadoo ay halkaasina ka soo qayb galeen dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee dalkan Britain iyo mas'uuliyiin isugu jira xubno wasiira iyo xubno kale ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bristol. waxaan halkan uga mahadnaqayaa laanta Bristol ee howlkan hawsha badan iyo jundiga gelisay waxaan leeyahay in gudoomiyaha oo ahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. موسى بيحة عبدي يا عبد الرحمن سيلعي وحييين وموسى يهوكوه قامنية اسمه ومجاهد حق له انه دلك التلديسة خانتوه اوك عنك كدوه هولانو كلا قادرناي وحيونو هايد وتوبوين وحي هايد دردرقلينتا وعيقلينتا نحسبك كل مية قارات يوروب قدية دبد بعد دلك قدية دبد دي سوا 26 جون iyo 18 meesi kala u arkaya intaan u arkay intii la yiri maaha 26 juun markaynu qaadanay sababaynu u qaadanay sababtaynu u qaadanay ma ahayn inay Soomaaliland dawlad noqoto 26 juun markaynu qaadanaynay maynaan doonaynin in dawlad la yiraahdo Soomaaliland jirto waxaynu u qaadanay in dawlad Soomaaliya la yiraahdo iyo midnimada Soomaaliyeed bi 26 juun aynu u qaadanaynay. xisbiga kulmiye markii uu mucaaradka ahaa wuxuu lahaa nidaam uu ku kasbado ku shaqeeyo guushana ku hantiyay. waa maalin aanu dardargelinayno xisbigeena markaanu xisbigeena dardargelinayno waxaynu leenahay inaanu ka shaqeynayno wadajirka ummadda jamhuuriyadda Somaliland inaanu ka maradhalinayno himilada shacbiga jamhuuriyadda Somaliland ah in la helo ictiraaf buuxa. sida uu shaqeyn jiray la xasuusanaa dad badan xagga ku wada fadhiyo tiyo tolo bida leedka rabaa anana hiili hore diribta xisbi aan reer ku abtirsan waa xisbi degmo kaliya aan ku abtirsan waa xisbi gobol kaliya aan ku abtirsan waa xisbi milow yacdo iyo halkii ugu dambeysay taleex ahayd oo daraad laantii ugu dambeysay laga furay dalku waa ku dhayahay. marka aynu xisbiga ka soo jeedno mas'uuliyad badan baa ina saaran marka hore waa xisbil xaakimka mas'uuliyad baa ina saaran. Aynaawi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland London. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa tababar u soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda deegaanka ee gobolada dalka sida warkani noogu faahfaahinayo wariye Cabdicasiis Caydiid Yamani.
tababarkan oo muddo 15 cisho u socday 13 xubnood oo kamid ah shaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolada dalka ayaa wax lagu baranayay muddadii uu socday aqoon guud oo la xiriira deegaanka gabagabadii tababarkan waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland hadal halka uu ka jeediyayna waxa kaga warramay tababarkan iyo ujeedada loo qabtay waxaana kula dadaalmay xubnaha tababarkan qaadanayay in aqoontii ay tababarkan ka kororsadeen ay ku dabaqaan hawlahooda shaqo isla markaasna uu ka muuqdo deegaanadii ay ka yimaadeen waxay qaadanayeen muddo 15 casha waxaana ku qaateen wasaaradda gudaheeda iyo dibaddeedaba sida buurta gacan libaax oo kale ay ku soo sameeyeen tababar ku soo sameeyeen ku soo qaadanayeen runtii wax badan waxaan filayaa inay ka faa'iideen kulana noqon doontaan goboladii iyo deegaanada ay ka timaadeen ku dabaqi doontaan insha Allah dadka laba nooc bay isugu jireen qayb hore u taqaanay oo ay u noqonayeen revision noqonaysay oo dib u naqtiin u noqonaysay iyo qayb hadeer tababarka la siinayay runtii warbixinta uu ka soo saaray ninka aqoonyahanka ay tababarka bixinayay dhamaantiin bayna si wanaagsan casharada u qaadateen si wanaagsan u soo xaadirteen aad baan idinka mahadnaqaya waqtigiina iyo attendance-kiinaba waxaan doonaynaa markaa dad aqoon leh oo aqoontii deegaanka leh in la dardar geliyaan doonaynaa gobolada xafiisyada ku shaqeysaan oo cilmigiina halka barateen iyo kiini horeba ku dabaqdaan oo isku filaataan wasaaradii halka mar walba la soo xiriiriseen inay idinku isku filaataan waxa jiri doona filaya laba tababar oo dambe oo kan la ku si taxalluqa waqtiga gadaal baa leedka sheegi doona insha Allah aad baa mahadsantiin Cabdillaahi Xuseen Jaamac oo ku hadlayay afka ka soo qaybgalayaasha tababarkaasi ayaa sheegay in tababarkan ay ka faa'iideysteen wax badan oo la xiriira shaqada ay hayaan deegaanka waxaana uu ballan qaaday in aqoontii ay ka barteen tababarkan uga faa'iideen doonaan goboladii ay ka yimaadeen qolada iyadan tababar qaadatay dhammaan ballan qaadayna anoo ku hadlaya afkii qolada la tababarayay ee tababarka qayb qaadatay gobolada ka socotay inaanu ku celino wixii aanu halkan ka barnay goboladii aanu ka nimi si ay shaqaalihii kale iyo dadkii kalena ay uga faa'iideystaan oo aanu dib ugu celino si ay wixii waxtar u yeeshaan waxaan kaloo ballan qaadaynaa insha Allah inaanu iyadana deegaamadii ay deegaan waliba wuxuu leeyahay forest buu leeyahay plantations buu leeyahay dhul laga shaqeeyaa buu leeyahay inaanu aqoontan halkan ka barnay deegaamada laftoodiina iyo dhulkii daaqeynka ahaa iyo dhulkii forestry-ga ahaana anu iyadana ku aqbalay gareyno aan ku hawlgallo sidoo kale isaguna halkaasi waxa ka hadlay Mr. Grace Joseph oo ah macallinkii bixinayay tababarkan waxna uu ka warramay waxyaabihii tababarkan xooga lagu saaray muddadii uu socday isagoo mahad celiyay ka soo qaybgalayaashii tababarka kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa si rasmi ah uga furmay hoolka shirarka ee degmadaasi sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama Jaamac Bood Cadde kalfadhigii golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hoolka shirarka dawladda hoose ee degmada Caynaba kalfadhigan ayaa waxaa shir gudoominayay duqa degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf waxaana sidoo kale furitaankii kalfadhigaasi goobjoog ka ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed kalfadhigan oo soo wada xaadireen inta badan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa waxaa furitaankiisii hadallo kooban ka soo jeediyay xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse saaka ay bishii June waxaan shirarka dawladda hoose ee degmada Caynaba ka bilaabmaya hadii Ilaahay dam ka dhigo kalfadhigii golaha deegaanka halkaas oo ay ku dhan yihiin hadda xubnihii golaha deegaanka runtii markaas iyo barasaabkii markaas aynu shirka u furano sidoo kalena duqa degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf ayaa tilmaamay in kalfadhigan yahay mid bulshada muhiim u ah isla markaasina laga doodi doono qodobo dhowr ah maantana farxad bay noo tahay inaynu kalfadhigii golaha deegaanka ee caadiga qabsanno iyadoo ajandayaasha ay ka soo bixi doonaan laga wada hadli doono xildhibaanada golaha deegaanka iyo maamulka labaduba ay qayb ku yeelan doonaan oo ajandayaasha aynu samaysan doono oo wixii laga doodayo macnaha nin waliba jecel yahay inuu laga hadlo ee majority noqda aynu halkan ka samaysan doono oo beeyaha kalfadhiga waxay laga hadli doono marka waqtiguna waqti dambe waana bil Ramadaan xilli cibaadana waa lagu jiraa marka inaynu iska gabagabayno had iyo jeer runtana laga sheego wixii dhabana laga wada hadlo waynaan deegaan had iyo jeer maanta mar haday bil Ramadaan tahay la soo dhaweeyo hadalka ayaan jecelahay haddana aynu bilaabano kalfadhigeennina waynoo furan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
ugu dambeyntiina kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed ayaa si rasmi ah u furay kulankaasi waxaana uu xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba uu ku amaanay sida hufan ay u gudanayaan hawshooda shaqo isla markaasina ay uga soo wada xaadireen dhammaantoodba kalfadhigan maanta ka furmaya howlka shirarka dowladda hoose ee degmada Caynaba maanta waxa ay farxada iyadoo golihii deegaanka degmada Caynabo ay halkan xafiiskoodii ku qabsanayaan kalfadhigoodii sharciga ahaa si fiican ay u agaasimeen u soo diyaar garoobeen waan ugu hambalyeynaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad isku afkarataan oo si wanaagsan shuruuc wanaagsan wax degmada anfaca oo dalka anfaca gobolka oo dhan anfaca oo ummadda la idin soo doorantay anfaca inay ka soo baxaan insha Allah ayaan idinka rajaynayaa aad iyo aad baa mahadsantiin mar haddaa saaka iyadoo rabadaana aad u soo diyaar garowdeen inaad kalfadhi qabataan shaqada qarankay ka mid tahay in la shaqeeyo oo dadku aa u shaqaysaan oo aad daacadnimo ku shaqaysaan shaqada qarankay ka mid tahay waxaan idinku soo dhaweynayaa inaad sidaa u soo diyaar garowdeen rabadaanta uga maradhalisaan kalfadhigiina idinkoo waliba aad mas-uuliyadiina wada ilaalinaya qof waliba uu ilaalinaya mas-uuliyadiisa oo danta qaranka iyo danta ummadda keliya maanta halkan u fadhidaan ummaddan uu gaara u leeyahay uma idin iman dan gaara uma idin iman dantii ummadda u timaadana u fadhidaan markaasi mas-uuliyada ku jirto u ilaaliya qorshaheenana sidaa aynu ku ballanayno idinku ducaynaya inuu idin hagaago kalfadhigu wax wanaagsan iyo marab wanaagsan dhalaan ka rajaynayana ka soo baxaan insha Allah isku soo wada xoor iyo kalfadhigan maanta ka furmay aqalka looga taliyo degmada Caynaba ayaa ah mid ay si weyn indhaha ugu hayaan guud ahaanba bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Caynaba iyagoo bulshada ku dhaqan degmada Caynabana ay si weyn u filayaan inay ka soo bixi doonaan ajandayaal iyo qodobo kor loogu qaadayo bilada magaalada Caynaba iyo waliba horumarka guud ahaanba deegaamada gobolka Saraar Jaamac Boodacade TV-ga qaranka Soomaaliland Caynaba suldaan xiiray oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa baaq u diray dadka walaalaha ah ee ay dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolkaasi Sool sida warkani inoogu eegayo wariye Nuuraddiin Culjoog afayeenka salaadiinta Soomaaliland Suldaan Yuusuf Maxamuud Xiiray oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa baaq u diray dadka walaalaha ee dagaalku ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Sool ee Soomaaliland sidoo kale waxa uu suldaanku soo dhaweeyay maalgashiga marsada caalamiga ee Berbera waxaana uu bulshada gobolka Saaxil ugu baaqay inay xukuumadda isku garab taagaan mashruucan kor loogu qaadayo wax soo saarka dekada oo la rabo inay la talaabsato dekadaha dhigeeda ah ee ka jira qaaradda Afrika iyo dunida qaybaheeda kale halka dharkay geeyo waxa ka dhacday dhibaato weyn laba beelood oo walaala oo ehela oo isku guriya oo isku ooda oo inaan yaabtigiya oo walaalaaba ayaa dirir ku dhex martay waxaan ugu baaqayaa inay colaadda joojiyaan oo wada hadal ku dhameeyaan kuwa dhintay Ilaahay ha u naxariisto ummadda dhimatay Ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacmayna Ilaahay waxaan ka bareen Ilaahay iyagana caafimaad siiyo bogoodana Ilaahay barxad isu mariyo wanaagga iyo sharafta tuso waxaan leeyahay ummadda dawladda Soomaaliland oo iyaduna ku dhawaaqday inay ka hawlgashay hawshiina ku jirta uqaasha salaadiinta iyo madax dhaqameedka ismada meel kasta ay joogaan iyo in kastoo dananaysa waxaan ugu baaqay inaanu si dhaqso uga hawlgalno waynu hawsha doorkeena ka qaadano ayagana bisha Ramadaan inay khayr la soo gashay inay joojiyaan dilka iyo dhiigga islaamka daadanaya nabadna ay isugu yimaadaan suldaan ahaan aniga ku hadlaya afka dhaqanka waxaan leeyahay iyo afkaygaba waxaan leeyahay dekada Berbera waa halbowli Soomaaliland waana hooyadii Soomaaliland
dekedda berbera waa la ballaarinayaa waa waxaynu 25 sano sugayni waxaan u qabaa dekedda berbera maanta hadday ballaarato inaynu ganacsigii iyo shaqaalihii intaba laga helayo ugu dambeyntiina suldaan yuusuf maxamed xiire waxa uu ballan qaaday in salaadiinta Soomaaliland ay soo dhaweyn doonto isla markaana ay u daba fadhiisan doonto xukuumadda talada haysa mashruuc kasta iyo maalgelin kasta oo laga fulinayo deegaanada kala duwan ee dalka mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay aas loo sameeyay Allah u naxariistay cabdi jaamac faarax oo ka mid ahaan jiray ciyaartooyada gobolka Togdheer sida warkan inoogu eegayo wariye jaamac aadan cabdi jaamac faarax oo ka mid ahaa ciyaartooygii gobolka Togdheer muddadii 8-maadkii ayaa aaskan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo dadweyne tiro badan waxaanay tacsi tiiraanya leh u direen ehelkii qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku iyagoona ka warramay taariikhdii marxuumka gaar ahaan muddadii dheereed ee uu soo dhex maaxay ciyaaraha gobolka Togdheer intaan runtii arkayo qof dhinta nafna waqtigan laakiin aad iyo aad buu runtii cabdi aan ka naxday markuu naga dhintay ilaa Suudaan wada degan ilaa Ingiriiska akhlaaq badan ee madiina aan dhib badnayn oo runtii cabdi wuxuu ka mid ahaa ciyaartoygii xulkii kubadda cagta ee gobolka Togdheer xuseen cabdi jaamac faarax wuxuu ahaa ciyaartooy gobolka Togdheer 1983 84 82 aad iyo aad baan ugu tacsiyay cabdi dhammaan ehladii qaraabadii asxaabtiisii waxaanu leenahay ilaahay jannada fadowso ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo weerdiisii iyo ubadkiisiina u samiriyay imaan ka siiyo isku tiim baan ahayn isku kacaan baan ahayn marka ilaahay naxariis dhammaanteen ka siiyo ehelkiiba samiriyay imaan ilaahay ka siiyo maxamed cawil xaaji nuur waxay wada safteen 1984 85 86 ayay wada safteen ciyaarihii gobolada ka bacdi 1986 cabdi uu ka dhoofay gobolka Togdheer uu dhoofay wadanka Imaaraadka hadday noqoto inta ay qurbaha ku soo waqtay saaxiibtinimada waa nin badan laga warrami doono marka waxaan leeyahay in waliba xilliga ay ku soo beegantay asxaabta hayaan way sii sharaxi doontaa waxaan leenahay Allah inna ilaahi raaji'uun qoysku nasidaaqatul mawt maanta waxaan joognaa xawaalina saablood oon keenay saaxiibkay cabdi jaamac waxaan leeyahay ilaahay samri iimaan dhammaanteen naga wada siiyo waxa weeyaan gurigiisa xaqaadan maanta keenay taasna waa mid aynu sugaysaa dhammaanteen geeriduna waa xaq marka waxaan leeyahay ehelkii qaraabada ilaahay samri iimaan dhammaanteen naga wada siiyo الله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت إلى يا نوش طبعا إن هدينا صدق حكومتها ما توعد جونا كيريدي أما سكيمر عبد الجامع فرح إلى عبد الجامع فرح جنة ذاك ورابيو الله نحرستي جنها ugu deeqay cabdi jaamac faarax ayaa waxa aaskiisu uu ka dhacay xabaalaha naasa hablood ee bariga magaalada Hargeysa wa jaamacadan TV qaranka Soomaaliland Hargeysa war hadda naga soo gaaray gobolka Awdal ayaa waxa uu dhignaa iyadoo ay magaalada Boorama ka jirto biyalaan xoogan ayaa haddana waxaa socda dadaalo arrintaasi wax lagu qabanayo oo ay wadaan madaxda heer gobol heer degmo iyo mas'uuliyiinta shirkadda Shabaab ceelal dheeraad ayaa qasabada laga soo xidhiidhinaya si loo gaarsiiyo magaalada Boorama waxaana telefishinka qaranka Soomaaliland oo booqday deegaanka Camuud oo indhaha soo saaray hawl baaxad loo dhinaca biyo gaarsiinta magaalada Boorama wixii intaasi ka dambeeyay shirkadda ay wada qabteen madaxda Shabaab isku duwaa wasaaradda biyaha gobolka Awdal maayirka degmada Boorama iyo xildhibaanada golaha deegaanku ay hadalkaas ka daba qaateen waxaanay carab ku dhufteen waxa dhacday ceelasha si istaag kordhayeen inagana biyaheen ceelasha soo kordhayeen halkaas sare ayay ku 10 mitir baa markii cishino qoday biyaha way soo dhacayeen wadiga arkaya sanad ka dambeeyay soo dhacayeen waxa dhacday halka markaan joogno sanadkaas ceel baa soo xiriirin isla ceelkii dhicitaankii uu bilaabay uu soo dhacay qayladhaan baan dhiibnay qayladhaantii waxay keentay in maaragtay khabiiro la soo diro ninkiina arrintayadii uu yidhaahdo haddii aan dadaal laga gelin Boorama 5 sanood gudaheed way biyabeelaysaa wasaaradda khayraadka biyaha in ceelkaasi degdeg loo soo xidhi doono in dadaalka kale ee dheerna muxuu ahaa la geli doono dadweynaha jahwareerka ku dhacay iyo bisha Ramadaan oo bishii la cibaadeysan lahaa la nasan lahaa ilaahay waxaan u sheegaynaa maanta in ay keentay cimilada ay keentay ama duruuf ay keentay
ama biyihii oo fogaaday oo cimilada ku laabtay ama bulshada qaybaheedu waxay og yihiin in ay magaalada saddexaad ee Soomaaliya wadankii la soo oran jiray tahay taasina waxa weeyaan number of population iyo distance-ka ballaaday waxaan ognahay xalay toona 12 habeenimo halka maxaan ku dhahdaa bahda shaaba iyo xildhibaanaduba ay fadhiyeen danta ay u fadhiyeenna ma ahayn dan iyaga u gaareen waxay ahayd ummadda ay ugu talinayeen hadday masiibo dabiici timiday inaan canaanama ma ahayn sideen uga galgalanaaba inoo tahay kuwa marka suuqa fadhiyeen iyagu ummadda waxba u soo wadina waa kuwa barbogaad soo fidinay waa cid ummadda ka naxaysa sida labada inaan hayeesho oo hantidooda ha horto aan jeexayno waxaan ku soo tallaalaynaa ceelka idin muuqda waxaan rabnaa muddo toddobaad gudihiisa inaan u dhamaystiro cabdinaasir cali ile cabdinaasir abraar TV-ga qaranka boorama gudoomiyaha ururka iidaan ee suuqa waaheen ayaa ka warbixiyay sixir bararka ku yimid khudaarta bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa noo haya wariye xamsi cabdi qurbaani iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa dhaqdhaqaaqa suuqa caasimadda Hargeysa uu yahay mid aad u sareeya dhinaca sixirka khudaarta gudoomiyaha ururka ganacsatada suuqa waaheen ee ururka iidaan Cabdi Fataax Axmed Maxamed oo warbaahinta qaranka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka waramay kor u kaca dhinaca sixirka ee khudaarta isagoo sidoo kalena baaq u diray ganacsatada kala duwan ee ka ganacsada khudaarta si ay ugu naxariistaan dadka danyarta waxaan ugu baaqayaa ganacsatada reer Soomaaliland ee kala gedisan haddii ay tahay kuwa raashinka keena haddii ay tahay kuwa qodfada ka ganacsada haddii ay tahay kuwa xoolaha ka ganacsada dhammaantood in ay u naxariistaan dadka danyarta oo ay qiimaha ay wax ka siiyaan ay hoos uga dhimaan ayaan ka codsanayaa ganacsatada reer Soomaaliland waxa kale oo bartan muxuu ahaayay baaq uga dirayaa shacabweynaha reer Soomaaliland in ay jiraan maadaama aynu galay bir Ramadaan dadka ay sooman yihiin waxa ku sugnaa dalka kumanaan waalan oo ku xidhnaa hodheelada waaweyn ee Hargeysa hambooyinka iyo cuntooyinkana ka cuni jiray markii la soomay ee Ramadaantana meel ay wax ka cunaan ay waayeen kuna dayacan yihiin wadooyinka iyo dariiqyada magaalada Hargeysa waxaanu leenahay dadka waa in loo naxariistaa oo dadka muxuu ahaayay dumarka soo adeeganaya dadka wadooyinka maraya ninkii wax siin karaa uu siiyo ninkii cunto siin karaa uu siiyo oo dadka darbiga iyo gidaarada jiifay xuskoodii Allah ka qaaday inay u naxariistaan baan ka codsanayaa shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waa Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa intaasi daawadayaal waxaan ku soo gabagabaynaa war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisaba naga soo gaadhay warkan iyo warar kale oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan baahimaha iyaga dambe ee soo socda haddii Allaha awoodda la idmo inta se ka horeysa aniga iyo waliba bahweyntii kale igala qayb qaadatayba waxaan idinku dhaafaynaa is aragti maqal dambe ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh